cudurka safmarka ah ee coronavirus ayaa saameyn ba'an ku yeeshay gebi ahaanba caalamka, iyada oo soo ritay in ka badan 2.5 milyan oo dad ah. Sidoo kalena waxaa ku naf waayay in ka badan 180,000 oo dad ah, sida uu soo gudbiyay bogga tirakoobka caalamka ee World Matter. Warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u hadalhaya cudurkan. سؤال موارب في زمن كورونا، حيث تكثر الأسئلة وتؤجل الإجابات. لكن الأمر واضح بالنسبة إلى علماء البيئة: بقاء سكان العالم في الحجر المنزلي لفترات أطول. caalamka isbedel noocee ah ayaa ku dhacay. qaar ka mid ah magaalooyinka caalamka ayaa muuqaalkoodu sidan isku bedelay kadib coronavirus. dadka ayaa guryahoodii lagu xareeyay, xayawaanada berigana sida kuwan idin muuqda oo kale waxay ku dhex wareegayaan magaalooyinka bandowga lagu soo rogay. muuqaaladan idin muuqda waxaa laga soo qaaday mandiqada Wales ee Ingiriiska. daanyeerada raadinaya waxay cunaan iyo baashaal ayaa ku dhex mushaaxaya wadooyinka waaweyn ee Thailand. doonfaarada ayaa ku dhex lugeynaya wadooyinka waaweyn ee Paris, iyo xayawaanka idin muuqda oo si nabadgelyaha ugu dhex lugeynaya California, iyo xayawaano aan abid la arag oo lagu dhex arkay Hindiya iyo Mareykanka. ka hor COVID-19 sidan ayay ahayd oogada sare ee dusha oo ay noloshu caadi ahayd. isbuucyo gudahood sidan ayuu isku bedelay caalamka, oo waxaa gebi ahaanba istaagay dhaqdhaqaaqii nolosha. malaayiin dad ah ayaa isku xabisay guryahooda iyo isbitaalada, iyadoo dhibkaas uu ku dhacay caalamka. haddana dhanka kale, jawiga ayaa degnaan laga dareemay. xaaladda bandowga iyo joogitaanka guryaha lagu soo rogay qaar ka mid ah wadamada caalamka, taasoo keentay dagaalka lagula jiro COVID-19, waxay cimiladu heshay deganaanteeda. waxaa wanaagsanaaday jawiga hawada, waxaa hoos u dhacay wasaqeynta hawada. haba ugu darnaadeene wadamada waaweyn, gaar ahaan kuwa warshadaha leh oo ay ugu horeeyaan Mareykanka iyo Shiinaha. muuqaalo ay soo qaaday wakaaladda NASA ee Mareykanka iyo wakaaladaha Yurub waxay muujinayaan hoos u dhac ku yimid heerka soo deynta nitrojiinka oo ay soo deynayeen gawaarida iyo warshadaha, kuwaasoo waxyeelo u geysanayay ozone layer-ka. mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka Talyaaniga ayaa heshay wax aan suurtagal u ahayn helitaankooda, taasoo ah markii ugu horeysay ayaa la arkay kanaalada biyaha oo saafi noqday, taasoo ka hor COVID-19 aan suurtagal noqon karin aragtidooda. maalmo uun kadib faafitaanka cudurka coronavirus, waxaa mar qura la maqlay in cudurka u gudbay shabeel ku noolaa beerta xayawaanaadka ee Bronx ee New York. tani waa gabadha mas'uulka ka ah beer ku taala magaalada London. waxay ka warbixinaysaa xaaladda soo kordhay. beertan waxay dhisan tahay muddo dhan 2 qarni, weligeedna iridaha la isuguma laabin marka laga reebo dagaalkii labaad ee dunida. markeedii labaadna waa hadda, oo waxaa loo xiray sababo ku aadan COVID-19.